كلايا أقنتينا كروسنا كرتيو بفنامبا لغو كربحاي كديسي كلايا أقنتينا كروسنا كرتيو بفنامبا كديسي كلايا أقنتينا كروسنا كرتيو بفنامبا لغو كربحاي kulanti wacan wanaagsan idil ahaantiinba akhyaartanada qiimaha iyo qadarinta mudana waa mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha leh kaftan iyo kadiska dabcan hadahan mar kale si toos uga daawataa telefishinka caalamka ee nabad xamtu saddex uu kuleeyahay magaalada Tinjigjiga dabcan barnaamijka waxa idin soo saartay isla marxad halkan idinka tabisaan uga mas'uul Cabdi Qafar Axmed Ladeeq barnaamijka waxa maalgelisay shirkadda rasmiga Finance Institution iyo adeegga Sahim Mobile Bangi toddobaadkan barnaamijku xiiso gaar ayuu xambaarsan yahay waxaan jeclahay barnaamijka dhameystiran iyo bulshooyinka qaybaheeda kala duwaneed ee dabcan barnaamijka qaybta ka ahaydba inuu soo wadaawno cid guuleysay cid kale kadib ayuu qaybaha kale ee barnaamijka iskugu soo noqon doona magacayga waa Nuur Raage oo kugu soo dhaweynaya barnaamijka Sonikeysa Nabati dabcan su'aalaha ku weydiin doona su'aalaha dad sax uga jawaabto waxay doontaa abaalmarin oo qoraysha koowaad ku weydiinay waxay tahay waxaad ii sheegtaa sanadkii la hirgeliyay khadka ama internetka khadka macnaha Facebook social media wixii la dhawaan khadka ta Facebook han waa 2000 khadka kale khadka dhanba xilliga Afrika soo gaaray mise xilliga caalamka uu sameeyay kun sagaal boqol iyo 800 dabcan ma saxiix fursadka aad ku siiyo waxaad ii sheegtaa markay noqoto mid kamid ah hoteelada ku yaala caasimada deegaanka magaalada Jigjiga isla mar ahaantaan aan leen wax albaab hadana 4 ka saac shaqeeyo albaabna ma laha 4 ka saac oo shaqeeyo waxaan filayaa hadaan isku dayo waa hotel ku yaalo keelaha cawaalo dabcan hanbalay wax ka noqtay guuleystayaasha dabcan barnaamijka doodka ku guuleystay oo ku hanbaleynaya dareenkayga aad baan u faraxsanahay dabcan barnaamijka markuu guur ka soo qayb gashay mise markaa dabcan barnaamijka qayb ka ahay awooda barnaamijka intuu soo jiray waan ka soo qayb gali jiray inta ay wadanku daqaalahay alaabta saxabsatayna inta man ka maqnaa laakiin wali waa la qabanay barnaamijka dameel kale ku qabanaysan ma inta iska bulaad ka qarinaysan mali okay mar kale oo ku hanbaleynaya Ahmed Maxamed Ajiil Ahmed oo ku soo dhaweynaya barnaamijka Sonikeysa Nabati TV dabcan su'aalaha ku weydiin doona su'aalaha sax uga jawaabto waxay doontaa abaalmarin abaalmarinta waxaa fududeysay shirkadda rasmiga Finance Institution iyo adeegga Sahim Mobile Bangi oo qoraysha koowaad ku weydiinay waxay tahay waxay sanadkii la aasaasay shirkadda rasmiga Finance Institution shirkadda labadii kun iyo waxaan malan 8 ama 9 dabcan waa saxiix fursad hadaan ku siiyo marka ay noqoto khadka ama internetka waxa ka kala lagu dhaho sanadkii la hirgeliyay waa inay sheegto taama garanay su'aal diini iyo xuduudiyaan dabcan la su'aalaad buudaad ka gooyay barnaamijkana aad u maasan tahay magacaygu waa Bashaar Cabdismaan waa kugu soo dhaweynaya wala barnaamijka Sonikeysa Nabati TV dabcan su'aalaha ku weydiin doona su'aalaha dad sax uga jawaabto waxay doontaa abaalmarin oo qoraysha koowaad ku weydiinay waxay tahay waxaad ii sheegtaa sanadkii la aasaasay shirkadda rasmiga Finance Institution walaal taama garanaysaa okay fursad kale hadaan ku soo xiriirtaa khadka ama internetka wixii afka qalaad lagu dhaho dabcan xilligii la hirgeliyay caalamka markay noqoto 2000 dabcan ma saxiix su'aalaha ku weydiinay aad baa ka mid cilaa ka qaybgalkaaga walaal magacaygu Khalid Maxamed Khalid oo kugu soo dhaweynaya barnaamijka Sonikeysa Nabati TV dabcan su'aalaha ku weydiin doona su'aalaha dad sax uga jawaabto waxay doontaa abaalmarin oo qoraysha koowaad ku weydiinay waxay tahay waxaad ii sheegtaa sanadkii la hirgeliyay shirkadda rasmiga Finance Institution Sahim madkooda Sahim walaal ma taariikhda Ingiriiska mise tan Ethiopia okay 2018 ha dabcan ma saxiix fursad hadaan ku siiyo markay noqoto khadka dabcan khad waad fahmaysaa oo maleynaya xilligii la hirgeliyay tarow sanadka yahay ma khadka internetka Ethiopia caalamka internetkiisa waxa la hirgeliyay 1980 dabcan ma saxiix su'aalaha ku weydiinay aad baa ka mid cilaa ka qaybgalkaaga magacayga Sahim waa kugu soo dhaweynaya barnaamijka Sonikeysa Nabati TV dabcan su'aalaha ku weydiin doona su'aalaha sax uga jawaabto waxay doontaa abaalmarin oo qoraysha koowaad ku weydiinay waxay tahay waxaad ii sheegtaa sanadkii la aasaasay shirkadda rasmiga Finance Institution 2014
hambali waxaad ka noqotay guulaystayaasha dabcan barnaamij kaftani keys ku guulaystay oo ku hambalyeynaya والله أد بفرحسناي إن تنسون كلنا مرة بالكلمة فرحسناي mar kale waan ku hambalyeynaya بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Ramadaan Ismaaciil Maxamed ramadaan oo kugu soo weynaya barnaamij kaftani keys nabad TV dabcan su'aalaha ku weydiin doonaa su'aalaha sax uga jawaabto waxaad doontaa abaalmarta waxaa fududeysay shirkadda Rasmi Microfinance Institution iyo adeegga Simwal Bank oo qoraysa shaqada ku weydiinay waxay tahay waxay sanadkii la hirgeliyay shirkadda Rasmi Microfinance Institution sanadkii shirkadda sanadkaas wuxuu ahaa 2018 dabcan ma la sixin fursad kala hadaan ku siiyo waxaad ii sheegtaa markay noqoto khadka dabcan afka qaraadna internet baa lagu dhahaa caalamka xirsamadkii la hirgeliyay rabaysan ma caalamka ma garan maxamed waa kugu soo weynaya barnaamij kaftani keys nabad TV dabcan su'aalaha ku weydiin doonaa su'aalaha sax uga jawaabto waxaad doontaa abaalmarin oo horeysa shaqada ku weydiinay waxay tahay waxaad ii sheegtaa sanadkii la hirgeliyay shirkadda Rasmi Microfinance Institution igaali sanadkii la hirgeliyay shirkadda Rasmi Microfinance Institution sanadkii la hirgeliyay waxaa hada 2014 hambali waxa ka noqotay guulaystayaasha dabcan barnaamijka dadka ku guulaystay oo ku hambalyeynaya waxaan arkaa bilaash aad muhiim ah oka dabcan markii ku guray ka soo qayb gashay mar kale ka soo qayb gashay ma aad markii wad weyn ma la socotay wada dawlada ma waa la socon dawan jiraa waxyaabo la hadda iga waxyaabo ma ka soo waxyaabo garbaad waxa sii xusdo maarta wiskiin yaada iga waxa soo sanaya marka hada farxadda ka taban bal ha aad ku hambalyeynaya mar kale بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waxa la yiraahdaa Xamse Maxamed waa kugu soo weynaya barnaamij kaftani keys nabad TV dabcan su'aalaha ku weydiin doonaa su'aalaha sax uga jawaabto waxaad doontaa abaalmarta waxaa fududeysay shirkadda Rasmi Microfinance Institution iyo adeegga Simwal Bank oo horeysa shaqada ku weydiinay waxay tahay waxaad ii sheegtaa sanadkii la hirgeliyay internetka ma garanayo wala okay fursad hadaan ku siiyo waxaad ii sheegtaa inta madaafiic Israa'iil lagu garaacay 2 I think طبعا ما صحيح سؤالك ويديني أنا بس هم عندنا كقيل قلقان ما عايز سير عبد الله علي وكوس رويني برامج كابتن كيس أنا بتسيب طبعا سؤالك ويدين دونا سؤالات الصحة وجه وحدة دون طبعا المرين أغورها شغلاتك ويديني وحيت هاي وحديث هذا سنة كل هيرجلي خدك سنة ما قرني أوكي فرص كذا خصية أو حديث شكتا أنت مدافع إسرائيل جو قراعي تردو لا تفضل قياسي طبعا ما صحيح سؤالك ويديني أنا بكمل عندنا كقيل قلقان ولا خالد محمد وكوس رويني برامج كابتن كيس أنا بتسيب طبعا سؤالك ويدين دونا سؤالات الصحة وجه وحدة دون طبعا المرين أغورها شغلاتك ويديني تواتك وحيت هاي وحديث شكتا سنة كل هيرجلي خدك أما إنترنت سنة خدك واحد اللي هيرجلي كل سيدات بقول شنو تضاعتني طبعا ما نصيحين فرصة كلام كسينا يا هذا قاعدين فرصة كلام كسية وسؤال وحي كورة ميسا وحديث شكتا أنت مدافع إسرائيل جو قراعي تردو حد ماضي مدافع إسرائيل حلمة ولك هذا واحد لما كنش بقول طبعا ما نصيحين سؤالها أدبا كامل إلا كتبقى القاعد أنا لاعب مفتاح سعيد وكوس رويني برامج كابتن كيس أنا بتسيب طبعا سؤالك ويدين دونا سؤالات الصحة وجه وحدة دون طبعا المرين أو قريها شغلاتك ويديني وحيد هاي وحديث أنت مدافع إسرائيل جو قراعي تردو إسرائيل جو قراعي كيد دويتولي كن لو قراعي بقول الصدق هنبلي وحكم نقطة قوليتاش طبعا سؤالها أنا والنتدبات كان صحي وكو هنبليينيا يا برامج سوى ركتان si fiican ma arkaa dhiirigelin dhalinyarada lagu dhiirigelinayo in dal walba waxa ka qaban ka maqleen ayagan maskaxdooda la kaalaya برامج كمان مركي كورة سوق قيب كشام مركي كسوق ma ima kay bar soo dadan iska maray ha مركي وكو هنبليينيا khawd abdullah وكو سروينيا برامج كبسني كيس نبتي بدو سؤالك ويدين دونا سؤالات الصحة وجه وقت حدود دون تابع المرين أو قريها شغلاتك ويديني وحيت هاي وحديث شكتا سنة كل هيرجلي خدك عم إنترنت سنة كده خدك عم إنترنت لو كوني لبدي
dabcan maadan sixin fursad kale haddaan ku siiyo waxaad ii sheegtaa hoteelka keliya ee ku yaalla caasimadda deegaanka ee magaalada Jigjiga ee aan lahayn wax albaab haddana 24 saac furan la tam garnay aad baad mahadsantahay najiib xuseen oo ku soo weynaya barnaamijka Kaftanikeys ee TV dabcan su'aalaha ku weydiin doonaa su'aalaha sax uga jawaabto waxay heli doontaa abaalmarinta waxaa fududeysay shirkadda Rasmi Finance Institution iyo adeegga Sahim Wal Banki oo qoraysa shaqada ku weydiinay waxay tahay waxay sheegtaa sanadkii la hirgeliyay khadka ama internetka sanadkii la hirgeliyay internetka Yurub kalaandara 1992 dabcan ma saxiif fursad kale haddaan ku siiyo waxaad ii sheegtaa hoteelka keliya ee ku yaalla caasimadda deegaanka magaalada Jigjiga ee aan lahayn wax albaaba haddana mar kasta furan habeen iyo maalinba xaadiri igu ciid hotel ku yaalla magaalada Jigjiga albaab ma lahan mar kasta wuu furan yahay albaab ma lahan mar kasta wuu furan yahay albaab ma lahan shaqaalihiisina sida waxay isku bedelaan dhakhaatiirta sida dhakhaatiir Jigjiga international ma balan Jigjiga international ka albaab leh waa hotel albaab la horta ma jiro albaab ma lahan ما بدي كارت هوتيل ما هذا ما فتح ما أسحن سألها عمر عبد الله وكوسر وين يا برامج Kaftanikeys نبت في بدو عن سؤالان كويدين دونا سؤالات تسحب وجه وبسوي حدير دون تابع المرين أو كل شيء قوادي كويدين وحيت هاي وحديش تأثرت كل هرجلي خدك كيف شغال بقول سياشي طبعا ما نصيحين فرصة لا دام قصية وحديش هيك هوتيل كلية كوي على عزبة الدجاج كمجال Jigjiga هذا راه الله يبح الباب أفرط كساعنا شقية شغالي سرسة دقتي تكته هاي هذا ما صنتها magacayga soo taxan halda Caydarus Xasan waan kugu soo weynaa Caydarus barnaamij Kaftanikeys ee nabad video aan su'aalaha ku weydiin doonaa su'aalaha sax uga jawaabto waxay doontaa abaalmarinta waxaa fududeysay shirkadda Rasmi Finance Institution iyo adeegga Sahim Wal Banki oo qoraysa shaqada ku weydiinay waxay tahay waxay sheegtay sanadkii la hirgeliyay khadka sanad dan qiyaaso waxaan malaynayaa 1983 dabcan ma saxiif fursad kale aan ku siiyo waxaad ii sheegtaa marka ay noqoto mid kamid hoteelada ku yaalla caasimadda deegaanka magaalada Jigjiga isla mar ahaantaana wax albaab lahayn haddana 24 saac shaqeeyo qaasta qabriga ma malaynayaa hotel malam hotel ba ku uri ma garanaysid aad ma sataa walaal magacay Style Fiicdalada waa kugu soo weynaya xawiti barnaamij Kaftanikeys nabad TV dabcan su'aalaha ku weydiin doonaa su'aalaha sax uga jawaabto waxay doontaa abaalmarin oo qoraysa shaqada ku weydiinay waxay tahay waxaad ii sheegtaa sanadkii la hirgeliyay khadka ama internetka sanadkii ميورا سنة كأذن مكرر مدير بدل كرتا أوكي فرصة كلام كسينا يا وحدي شيء هوتيل كلية كوي على عاصمة الدجاج كمجال Jigjiga إسلام مرهان ترى واحد الباب على اللهين هذا نافرة كساعة شقية وإحنا يا نايل هوتيل أنا الباب لهين وكوي على مجال Jigjiga هذا نمر كسر شقية ونودي هوتيل الباب لا يقرون لهم يعني ما هو نكاورين على أركي هذا ما صنتهاي magacaygu Maxamed Cabdullaahi Cali waa kugu soo weynaya barnaamij Kaftanikeys nabad TV dabcan su'aalaha ku weydiin doonaa su'aalaha sax uga jawaabto waxay doontaa abaalmarin oo qoraysa shaqada ku weydiinay waxay tahay dabcan adigoo kaamirada ii eegaya oo qoraysa shaqada ku weydiinay waxay tahay waxaad ii sheegtaa sanadkii la hirgeliyay khadka labadii kun dabcan ma saxiif fursad kale aan ku siiyo waxaad ii sheegtaa hoteelka kaliya ee ku yaalla magaalada Jigjiga aan lahayn wax albaab haddana 24 saac shaqeeyo igu cel hotel ku yaalla magaalada Jigjiga aan lahayn wax albaab haddana mar kasta shaqeeyo habeen iyo maalin ma garanayno dabcan ma saxiif su'aalaha aad baa ka mid cilaa ka qayb galkaaga Cabdil Jiib Caram Calaan waa kugu soo weynaya barnaamij Kaftanikeys nabad TV dabcan su'aalaha ku weydiin doonaa su'aalaha sax uga jawaabto waxay heli doontaa abaalmarin oo qoraysa shaqada ku weydiinay waxay tahay waxaad ii sheegtaa hoteelka kaliya ku yaalla caasimadda deegaanka magaalada Jigjiga isla mar ahaantaana aan lahayn wax albaab 24 saac shaqeeyo Awaale ku yaalla kaas hambali wax ka noqotay dabcan shakhsiga ugu horeeyay saxay dabcan su'aalaha oo ku hambalyeynaya ما شاء الله وان كفر حسنا مركو هذا كقيب قالوا سؤال كوادي ولا ويدي كقول السوق هذا المسد طبعا ما jirta barnaamijka wax tani tusaaladu haysa waxaan dhihi lahaa hal tijaabino wal nasiibkiisa qafal mar kale waa ku hambalyeynaya magacaygu Cabdiqaadir walaal oo kugu soo weynaya barnaamijka Kaftanikeys nabad TV dabcan su'aalaha ku weydiin doonaa su'aalaha sax uga jawaabto waxay doontaa abaalmarin oo qoraysa shaqada ku weydiinay waxay tahay waxaad ii sheegtaa
xilligii la hirgeliyay khadka xilligee xilligiis ama sanadkii la hirgeliyay khadka rabaa khadka Ethiopia caalamka oo dhanba khad wixii ahaaba 1900 haddaan isku dayo 1949 dabcan maadan sixin fursad kale hadii aan ku siiyo waxaad ii sheegtaa mid kamid hoteelada ku yaala caasimada deegaanka magaalada Tigtiga isla mar ahaantaan aan lahayn wax albaaba haddana afarta ka saac shaqeeyo taroosuu ku shaqeeyaa waa Awaala hotel waxaa ku yaala ku yaala korkaas ku yaala magaciisa maadaama aan sheegay waa caadi oo ku ogal lahay hambalyo dareenkayga aad baan ugu faraxsanahay meeshan su'aashii aan gartay aan ka jawaabay aad baan soo dhaweynayaa waana niga mahad celinayaa barnaamijka maadaama guuleystayaasha ka mid noqdo dabcan barnaamijka markuu kugu ka soo qayb gashay mar kale ka soo qayb gashay mar hore hadda ka hor waan la kulmay laakiin ma ahayn guuleystayaasha laakiin markii labaad maadaama ay tahay guuleystana waan ku faraxsanahay aad mar kale waan ku hambalyeynaya magacaygu maxamed ismaaciil oo kugu sarweynaya barnaamijka tinikeysina matiiba dabcan su'aalaha ku weydiin doonaa su'aalaha si sax ah waxa waxay doontaa abaalmarin oo guriga shaqada ku weydiinay waxay tahay waxay shaqada sanadkii la hirgeliyay shirkadda Rise Microfinance Institution shirkadda 2014 hambalyo wax ka mid noqotay dabcan guuleystayaasha dubaadka barnaamijkan oo ku hambalyeynaya dareenkayga waan ku faraxsanahay dabcan barnaamijka markuu kugu rees ka soo qayb gashay mise marar kale qayb ka ah marar kale waan ka soo qayb galay guuleystaan ahaan jiray inta badan armad uga cabaysan guuleystaan kuma cabay guuleystaan xaqiiqadii waxa tariid soo barnaamijka tariid soo waxaan dhiilaa barnaamijka la sii wado mar kale waan ku hambalyeynaya dabcan daawadayaal haddaan iskaga soo noqdo barnaamijkii oo dhammaystiran wada arkaysa dabcan su'aalaha ugu daawanaysa haddaan idin dhaho dabcan su'aashaas sida ayay sax ku tahay macquul inaan asixin macquul inaan u saxno sababtoo mar kasta idinka ayaa naga badan dhanka su'aalaha wada arkaysa jawaabaha dubaadkan idinka ayaan idin dhaafayaa inta ayaan dubaadkan ku saafmeeriyaa barnaamijkan kaftan iyo kadiska wal waan jeclaan stuudiyaha si wada joogno isla mar ahaantaan haday noqoto bulshooyinka qaybaheeda kala duwan dabcan barnaamijka qaybta ka hidi kaftan iyo kadiskiiniba aynu si wada daawano balse waqtiga saamaxayna awgeys iyo qaybihi kala telefishinka idinku soo talagalay hawada ku soo jira inta ayaan dubaadkan ku saafmeeriyaa dubaadka xigeentina ku kulmi doono dhanka kaamirada waxa dubi nimcaan haweentii qurxinta barnaamijku waa injineer Shucayb farsamada baahintu waa injineer Nuurdin Faad dubaadka xigeentina ku kulmi doono waa aniga Mr. Cabdiqaadir Faarax oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo bye bye kadise kalaya aqoontiina kororsada kartiyo hufnaanba lagu kala baxay kadise kalaya aqoontiina kororsada kartiyo hufnaanba kadise kalaya aqoontiina kororsada kartiyo hufnaanba lagu kala baxay Rise Microfinance waa shirkad bixisa dhammaan adeegyada maaliyadeed sida ku kaydsashada lacagaha maalgashiyada iyo amaahda hab waafaqsan nidaamka dhaqaale ee islaamiga waxa kale oo intaas ku dheer adeegyada sahay mobile banking oo ay adeegyadiisa ka mid yihiin ku kaydsashada lacagta mobilkaaga ugu dirista ehelkaaga asxaabtaada iyo cid walba goob kasta oo ay waddanka ka joogaan iyo goor kasta bixinta biilasha adeeg kasta oo aad isticmaalaysid sida korontada biyaha adeegga bajaajta ka adeegashada iyo ku iibsiga dhammaan goobaha ganacsiga dalka oo dhan waxaa intaa ku dheer adeegga bulk payment oo aad ilbiriqsi ugu diri kartid mushaarka shaqaalahaaga ku goosashada tigirka Ethiopian Airlines adigoo jooga gurigaaga goor kasta sidoo kale waxaad si fudud ula bixi kartaa lacagta kugu jirta sahay ama akoonkaaga Rise wakiilka kugu dhow ee shirkadda adoo isku xidhanaya akoonkaaga Rise iyo kan sahayda si fudud si aad ugu isticmaashid adeegyada iyo kuwa kale oo shirkadaba kala soo deg applicationka sahay App Store-ka ama Play Store-ka ninna sahaydii ma cuslaysiisee sadka eebo ku siiyo sahaydaada ku qaado moobilkaaga oo si fudud ugu muraadso bulshooy balantan waa hoyga kaydsiga hantida ee Rise Microfinance adeega casriga ah ee sahay mobile banking wixii faahfaahin inta dheer waxaad kala xiriiri kartaa nambarada gaaban ee 8977 ama booqa website-keena www
raismicrofinanceinstitution.com ama sahaybay.com. Rais Microfinance, hoyga kaydsashada hantidaada.